ورسنجري بهاي سلطنة دي كهر رئيسنا وحياه سلطنة دي وحوي نبيلها كورو يهاي قريبة يهاي تكلا كسر حتنا وحياه سلطنة برترة وحيد دبي كسر حتنا وحياه وقاس لماذا شيء وحوي عند والبهانتنا شرشة ورمر كوي مادو أي وقرات كبدليا أنت كهر رئيسنا وقاسيو شرشة ورمان في مادو وقرات والبهانت كبدليا لما كان ورسنجرينا قراد عبد الله وحي كسوكيا waxay isku bedelayaan suldaan anaga laakiin for ever grade baan wahayn saldanadii ugu horeysay lagu kala tagay ee kabla ku kala tagayna way ahayd saldanadii ugu horeysay kabla ku kala tagay koombana ku kala naafoway taariikhdana aan lagu haynin boqortinimo xataa hadda harti dhaxtaala saldanada beesha gari inay wariga qayb ka soo noqon khilaafkoodiina boqol jeer la waxeeyay waxaan maranayaa boqol burhaan baa la isugu yimid waxaana lagu kala tagay waxay ahayd boqortinimadii ilmo koombe dhaxtaale ee shanta ilmo kabla markay ku kala tageen markay kabla markuu soo qaaday ee koombiya kuubada ay ku kala tageen koomba uu raacay koomba way ku kala tageen oo way isku dagaaleen way isku dileen gariya hadiyaga gacantooda ku laayay walaalahood ugu dambeyntiina gari baa garaadnimo loo calima saaray absame iyo tanada iyo sadaba gari bay aqoonsadeen oo garaadnimadu u aqoonsadeen inta marka u aqoonsadeen waxaa garaadnimo samaystay iyaguna bartire waxaana qiraya arrintaas oo afkiisa ka cadaynayo muuqaalkiisa uu YouTube ku jira waxaa xilligii bahar sameeyay qayaad la heshiisiinay waxaa lagu kulmay magaalada Jigjiga sida ogeeyay gobasha Jigjiga la fadhiyay garaad kulmiye isaga afkiisa ka qiraya oo la markuu garaadka gari joogo waa garaadkii kala laxlay waxaa kaloo arkaysaa garaadka dhulbahante oo isna hadlaya oo la garaadka waxaan u maleynayaa hadii uu qofka magac dheer yahay iga afsiin dheer yahay waxa iga afsiin dheer uu garaad kulmiye u banaan isku tirsan u leeyahay marka niyow saldanadu inay sidaas maartay baashi u cadaan maleynayaa hadii loo baahdana intana ninkaas hadda geen karaya bulba haday xagga hartiga noqoto warsangeli sanaagna isbaad ka doonaysaa bulba absame haday noqoto YouTube gadanaysaa garaad kulmiyo afkiisa ka hadlayaad arkaysaa waxaan maleynayaa inaan wax dooda cidii qabtaayba tan inteeda maanta ay social media ay ku jirto iyo website-yada iyo taariikhda ay ku qoran tahay marka garaadkii ugu horeeyay la doorto wuxuu ahaa garaad muumin wixii intaa ka dambeeyayna ilaa iyo saldanadii Axmed Gurey abaan Gurey wuxuu ahaa garaad Cabdimaalik Jubeyna waxa weeyaan waa garaad waxaan ka wadaa waa garaad makaan taariikh Jubeyna waa garaad Cabdimaalik in la fahmay baan jeclahay halkaa waa fahmay waayahay ما يقول مريسا أنا مساك سانك تجيدا ما إلهي بك تهيب أمكن وها وكل جواب قاضي مدة لاندير الله هالكاي بسم الله الرحمن الرحيم وحنا والله شاشة قراءة كتب كي جرسية ورا شاشة قراءة والله شير قراية وحنا أركع سلدروي كان سال سوق الصيو ضدكوا ناس أبترسيها أقول بعد مدة هرتا هذا الواحد كده بتجي جراد نمعان هذا الكسيم كده بتجي يايو دولي جد ويدعي تشتيو إن لقوم مرموه ninka la yiraahdo Imaam Ahmed Gurey horta Imaam Ahmed Gurey baad moodaa in nik raga haysashada aan isku haysano waa reer hebel markay ka tagto Imaam Ahmed Gurey horta waa nin reexana oo reegrada Gurey waa nin gariye halka inaad riis hadalka kaama soo galeynay inaad kaama soo galeynay qarnigii 16 qarnigii 15 oo uu dalka maamulayay in adeer sida taariikhda aan ku hayno ama ay ku qoran tahay buugga Fathul Habash ku qoran Imaam Ahmed Gurey ninka la yiraahdo qarnigii 16 waxa bedelay ninka la yiraahdo Amir Nuur oo sadanada maamulayay 12 sano hayay waa qodob qabso in sadana iga facweyn daarood inuu jiro umalayn maayo markii daarood 8 ahaa iyo marka hadda uu yahay waa qodob isku haysashadiisa aan isku haysano hadii cid kale oo aad sheegataan aan nahay waan kaga tagi karnaa dhim lahaan ilma adeeradayaatiin hadda nadaarod ka dhex bixinay waa ogal lahay balaayo kale oo sheeganaysa waa arkayay inta markaan ka soo tago مرصاد شيء صوت إيش جناده إيش أنت مرة كنت مرصاد محيطة إني أرتيجان لليه أرتيجان الليهين صدنا أنك وقف وين يبقر الليهين قرني اللي حكيته من الدجال مركب وشري وأحمد قري وأمير نور هو جابني وقال إيه صدنا بعد الصعيد ما صدنا دي وحين هوستجين جرادك وحين هوستجين قريبي هوستجين تاسمع بينبع ووحبوك فتح الحبش كقرانوي وغضب انت مركان كسو تغا waxaad tiraadeen amaan la noogu horeeyay baad tiraadeen abtirsiyaha in la yaqaan muhiimadu ay tahay amaan la oo samaan siman fiiri amaan la oo samaan markay siman yihiin anigu intaan laha marka ba fiiri waxa aad ka hadlaysaan
amaan le iyo awsama markay siman yihiin oo las day waa amaan awsamana waayo waa ina baalyirina waayo waa ina hodan waa ina gaalshida bal fiiri saddex oday buu halkaa kor kaga degtaa inaad fiiri inaad halkaas dadka kala taqaanaan baa muhiimadu ay tahay inaad adeerow markaa intaan ka soo tago qarnigii 16aad oo uu dhintay ninka la yiraahdo imaam axmed gurey waxaa xaaskiisii dumaalay sadanadiina la wareegay 12 sanana hayay amiir nuur oo sadanada hayay waa goorma qarniga marka hadda amaan la leedihiin waa noogu horeeyay oo sadanaaba noogu hadaan inii ogolaano ilaa meesha dooda ka fureed waxay ahayd yaa sadana ugu facweyn garaadnimada halka iska dhig nimanka la yiraahdo gari halka iska dhig ayaga saldanada la yiraahdo waa naga facweyntii qarnigii 16aad anigu dalka maamulayay oo axmed gurey iyo imaam nuur oo 12 sano haystay keebaa facweyn halkaas ay ka cadaanaysaa hal su'aal ma ku weydiinaya adoo ku socda raadiga ma yaadaro aan ka soo maado maya arrinta kale aan jawaabi doona laakiin su'aal ku weydiinaya aan ka soo maado mid ana bacdeeyay facweyn ma kan noqotaan bacdeeyay qarnigii 16aad inay hoos tagayeen harti ay hoos tagayeen nimanka la yiraahdo sadanadaadi hoos tagayeen oo 130 ay ka soo ciidamisay baa fadxi wuxuu ku qoran fadxi xabash buu ku qoran yahay qof kasta akhrin kara 130 maanta saxniyo tirada guud saxniyo inaad 130 hadan ku diray ku noqotay hadan inaad screenshot ka saaran kara warqad macaan baba hayo hadda ka hor maalin ma inaad soo kala ana soo helay waxaan diray waxaan isku dayaa inaan raadiyo oo u diro ninka ana hadda ayaan fiiray hadda screenshot ka qaata ma saarta inaad ku noqo ciidanka waxaan joogay ku noqo foto xabash beedkii oo qortaan dib ugu noqo nimaano hadda ay soo sabtay ku soo dirshay ay tira inaan raadiyo insha Allah ku sheegay 130 nin oo ciidanka fardaha ninka bal maqlaya 130 nin oo ciidanka fardaha fardooley waa ku qoran tahay marka ورنا هذا مرتبط هاي أنا ما قاعد أدري دونتاك هاي أنا صدق أنا هوست بس اللي غير كون هوست هذا ولا هذا ويقول الله ما أدري أو ولا هوست جاي سلدنا غير كون بهوست جاي داي وحي هوست جاي سلدنا غير كون بهوست جاي وتقالكي marka inta ka soo tagto qarnigii 16aad shantoonada ka soo tagto qarnigii 16aad wardarwiish ba soo Axmed Gurey markuu dhintay inaad sadanada waxa hayay amiir nuur bal fiiri 12 sano buu hogaaminayay xaaskii inuusan ahayn nin gariyana waxaan kugu cadaynayaa adiga haddii hadda aan walaalanahay oo gabar aad ka dhimato sida dhaqanka iyo hiduhu uu yahay ma nin kale dumaalaya mise ninkan amiir nuur baa dumaalay naw saacadana ilmaheedii ay harar iyo degan yihiin meel walba ilaa hawaasi ay degan yihiin marka dee nin mareexaanuhu nin gari islaantiisa ma dumaali kara in adeer ayadoon la waayin adeerkii ayadoon la waayin bahalkii taasay kugu cadda intaa markay ka soo tagto بالفيري وبقر محمد داود وأبدر وبقر موسى وبقر محمد وبقر ورشالة وبقر رادمير وإسحاق هل كاسان كيغا أبترسدا ورنيو أنا أبترسيو مركين نقطة دارود جيد waxaan maqlayay meeqa ka tirsataa iyo meeqa ka tirsataa odayga daarooda anigu wiilkay aan dhalay anigu curadkayga konton buu ku tagaa 49 ana ku tagaa hadda hadda iga tirsanaysan ma iga tirsado ma maqlaysaa wallahi tallahi baan been sheegay anigu wiilkaan dhalay wiil reer dalana fiiri konton buu ku tagaa wiilkay konton anna 49 baan ku tagaa iga tirsada hadda rabto fiiri kay waxa qaldan soo kila 22 baa haweeney maraha warbiyo anigu waxba igama geliniyo cidna aan warkiisa ka daba tagay laba حسن إسحاق مركان هاي إسحاق خالمير بودلا فيري وروح جاله محمد موسى أبدر بقر محمد هل كاسن كده دقانيو أنا هل سؤال بقولي عارف دقيسو هل سؤال بقولي هاي قولك واحد داورس الشم بقولي إيه واحد قرب كارو أديكو تدرسان هرتي وأنا غنينه ولا تقول ما مرحبا بقول لك دورت مرحبا داورس الشم بقولي يكون تقبل داورسه sharad baanu dhiganaa abtirsi daarood haddaad 43 qof Soomaaliya oo daarood dhaafada ii keentid waxa la wixii Soomaaliya wax ku taabixinaya waa 49 ana ku tagaan 49 ana ku tagaa waa suuq iimaan 43 hadda qof daarood dhaafiya haddii la keeno
والله بالله تلا وحي لغو حكوان بخل يا قود يا انا شنب قود يا shaashada garaaca marka noo sheer gareeya dooda marka aniga in maraysana ii keen cidii ka furmaysan haji waaya hal qodob baan ka daba tagaya hal qodob baan ka daba tagaya five lions waaya inaad mudi gal insha Allah hal qodob baan ka daba tagaya walaalkay wuxuu ina aan ma dhameystay ina ka muddo dood furan bay ahayd maxay tahay doodaha la iska daba tagaya ma dhameystay ها وانا ميان ولا ما يستاهل بس هذا انا معانا وين هذا كذا تكتب لبدينا ما يكون نقول ما يا وان قضب ما يا انا وحيابه waxaan ka saaraya waxaan isku qabanayaa Axmed Gurey habro waana ka doodo Axmed Gurey inaan aad ukaadi mayna qodobka Axmed Gurey dalashadiisa halkaas aynu dhigaynaa marka hore si ayna doodku inoogu qurux madnaato waxna la isla fahmo ninka walaalkaya wuxuu yiri caalin wuxuu yiri imaam waxa hogaaminayay uu yiri Amiir Nuur isagoo xilligaas saldanada ficil sheeganaya fiiri ami waxa sameeysaa hadda imika barta ay ku qoran tahay ee hadda adigu aad dul joogto page-kan hadda adigu aad dul joogto ee aad leedahay walaalkay waxa weyn hadii Ilaahay ku rooyaa ciidanka 130 ay hadii ka hogaaminaya leedahay waxaad eegtaa calan wadaha ama abaanduulaha ciidanka saldanada Axmed Gurey wuxuu ahaa garaad mataan Khalid Amiir Nuurna wuxuu hoos tagay garaad mataan Khalid waxa ku xigay Amiir Nuur xataa kuma xigine waxa ku xigay Xuseen Giire oo ahaa isna habar magaalo hogaaminaya isaaq xilliga habar magaalo iyuu ahaa buuqa Fatuuxul Xabash meesha uu ka soo galaya isaaq waxa weey Axmed Gurey wuxuu ku dhashay beerta reerada Foobata Gari uu ku dhashay gabadha uu qabo waa gabadha garaad mataan Khalid gabadha uu qabo isaga iyo imaam garaad mataan Khalid iyo beesha Gari oo wada socda iyo Axmed Gurey oo wada socda waa Soomaaliba halkay ka soo gasho ayaa waxay ku soo duulayaan isaaq oo qablayaal ah oo Xuseen Giire uu hor joogo habar magaale waa isla page-kaas haddaan been sheegayo waxa oran kara isaaq kuma qorna isaaq meesha uu ka soo galo waa barta weey waxa iska can saaraya Gari iyo habar magaale la iska can saaraya ciidanka tiradooda inaad yeerto waxa iska can saaraya Gari iyo habar magaale la iska can saaraya Gari waxa abaanduulo ah oo hogaaminaya Axmed Gurey iyo garaad mataan Khalid oo agaraadkii guud ee beesha Gari mana jirto ciidan muslimiina oo aan ka ahayn Gari oo Axmed Gurey la socoto waa bilowga taariikhda buuga ay ka soo gasho magaca Soomaali wax la yiraahdo ay ka soo gasho imaam Amiir wuxuu imaanayaa waxa ka horeysa fariinta uu u diray imaamku waxayna ku qoran tahay isla buugan page-kiisa 13 bay ku qoran tahay waad furi karaysaa waad eegi karaysaa waana barta uu isaaq ka soo galay waayahay marka uu ahaa hogaamiyuhu uu ahaa Axmed Gurey markuu ahaa abaanduulihiisa iyo calanwadihiisa ama calanwadaha muslimiinta ama abaanduulaha muslimiinta xilligaas Soomaali iyo intii la socotay Carababa abaanduulihiisu uu ahaa garaad mataan Khalid uu ahaa Amiir Nuur iyo garaad mataan Khalid halka waxa ku cadin garaad mataan Khalid uu kaga awood badan yahay buugayna ku xusan tahay wax been laga sheegi karayna ma harti ciidanka ka imaanayo 130 maaha waa 138 nin oo fardoolaya weey oo ma sideen nin ku dartaa ma aan ku sheegay waxaan kaliya adkaa ka sugay intaas waa siida sugnaaday waa 138 nin oo fardoolaya 10 sano ayaa wuxuu hogaaminayaa ayuu wuxuu hogaaminayaa garaad mataan Khalid ciidankooda darada hoostiga iyo Gari hoostiga qada ma yihiin ma sugnaaday yamaya warmurtumaan ugu ciidamadu maadaama qabaa'il yihiin ciidamadu maadaama qabaa'il yihiin hadii intii ka ciidaminaysay nimankaas hore marka dambana waxa loo dhiibayaa nin Cabdi Jibriil la yiraahdo oo dhulbahanta ayaa wuxuu la wareegayaa ciidamada hartiga intana way ka awood badanayaan sidoo kale waxa xusid mudan ciidamada hartigu waxay ka soo horeeyaan fariinta mareexaanka loo dirayo Amiir Nuur Amiir Nuur fariinta marka loo dirayo waxa uu dirayaa imaam Axmed Gurey wuxuu fariin dirayaa guud ahaan qabaa'ilada Soomaalidu fariin dirayaa qabaa'ilada fariimaha uu dirayo waxa kamid ah mareexaan marka waxa ka imanaya Amiir Nuur nimanka Ishaaqna iyo Garina way isku dilaan marka ugu dambeeyay heshiiska ugu dambeeyay waxa gala garaad mataan Khalid oo garaadka guud ee beesha Gariya iyo habar magaalo oo hogaaminayo Xuseen Giire oo nin garxadkiisa uu hogaaminayo ayaa la isugu imaanaya halka labadaas oo wada socdo marka Gari iyo habar magaalo oo wada socdo ayaa waxa imaanaya ciidamada hartigu si automatic waxay hoos tagayaan garaad mataan Khalid oo ahaa abaanduulaha muslimiinta oo hoos imaanayeen guud ahaan ciidamada muslimiinta oo dhan ama calanwade sida ugu qoran taariikhda calanwada ahaa oo garaad mataan Ismaan Khalid waayahay waxa geeriyooda oo la dilaa garaad mataan Khalid imaam Axmed Gurey iyo garaad mataan Khalid iyo Xuseen Giire saddexdu way geeriyoodaan dagaalkayna ku dhintaan waxaana soo haray Amiir Nuur oo ahaa shakhsiga saddexaad ee ugu saameynta badan waana halka uu ka soo galayo saldanada Amiir Nuur
حتى هويه كلو شيغان يا قيس هويه هذا كيسو wuxuu ku leeyahay hal wasiir wasiirkana waxa ugu qoran wasiir Abbas hadda buuga hayso dib wad ugu laaban karaysa anigu 10 jeer baan akhriyay buugaas waxaan kaloon xasuusinayaa dadka waa sax inayna buuga ku qornayn hebel qabiilkaas uu ahaa sida tusaale ka soo qaad imaamka oo kale ku qornayn laakiin waxa ku xusan walaalihi ayaa ku xusan buuga waxa ku xusan Garaad Yoonis baa ku xusan Garaad Yoonis ayaa ku xusan waxa ku xusan Abdullaahi Ciga ayaa ku xusan oo ah nin bagorofla oo ingiriya oo bagorofla oo reer aadana waa walaalkii laxmiya baa lagu leeyahay wargalaad soo kufi bal darwiish xasan oo soo gal qasiga bal marka qodobada cadeynaya ana ninka odayga isagoon cadeen buu qodobada marka cadeynaya Axmed Guri ingiriyaha waxa ku xusan weerarka uu galayo walaalkii oo ah nin gariya oo bagorofla gariya oo reer aadana oo ah Axmed Guri walaalkii ayaa ku soo dhaawacmaya waa buuga diiwaanka ku qoran tahay marka in adeer taariikhdu wax isqarinaysa maaha haddii aad leedahay dee gabadhii xilligii dambe way isku tageen haddii aad leedahay waa gooni wey laakiin waa goor ay saldanada iyo wuxuu saddexdoodanba ay dhinteen oo saldanada sii burburaysa wey waana haddii aad diidan tahay wax qodob haddii aad diidan tahay oo buugga gacanta ku hayso ninkaa waad u diri karaysaa halkaana waa la soo saari karayaa hal meel baan kaga noqonaya hal meel baan kaga noqonaya hal meel waa soo fududeynaya nin odayga halka intuu soo qabsaday isagoo aan hadlin buu degay ninka la yiraahdo darwiish xasano haddaad joogto soo qabso midda kale abtiyaal wuxuu waa dood qodobka anigu aan si weyn u saxiixaya waxa weeye dooda ah saldanadii ugu horeysay ee beesha daarood ay cageeda ku wada istaagtay aqoonsato waxay ahayd saldanada beesha garaadka beesha gari garaad muumin buu ahaa garaad mataan Khalid buu ahaa waa 1500 calaamadaha muslimiinta uu ahaa ama abaanduraha waa soo kusay waxa la sheegay qodobkan ku soo ururnay waxa weeye waa ninka ku doodaya 1560 ninka ku doodaya 1560 ku doodaya in uu saldanad u lahaa horta hartiga kaalay wada gari ma ka bixin macaan ya soo kama bixin hadalka war qodobka waan soo ururnay hadalkayga biyo aroori way aroori hadalkayga biyo dhiciis waxa weeye waa ninka ku doodaya saldanad fac weyn oo xilligaa talinaysay ku doodaya ama saldanad duub xiratay ku doodaya halkaa ha soo fariisto waa intaas 1560 hal meel baan kaga noqonaya in adeerow hal meel jawaabaysa warda darwiish xasan waa dagayaay murtimaalo labada daqiiqo qaado عالم تاقل المرتمال هذا شيء فكر مع مرتمال ده مو ناقل اني ربك انه بطيء مرتمال الوضع قاعد ترى عالم بجواب تسكر دق مركا احنا رئيس جود هذا لو كنا نرى inuu fadhiyaa sababtoo ah ama caalim baa u jawaabay wada kari waa tagay 2 daqiiqo ma salaameen ku hadlay isagu waa baxaya waa ma salaameen yaaba aad iyo aad baa u maasantay dhamaantiin niyo warta waxa weeye afar laba ama salaf wixii meesha ka dhacay waxa weeye kursigii shanti daarood baa lagu wada fadhiyaa halkaas la wada sheekaysanaya sharaf iyo karaamo ka weyn ma jirto nimayo waxa weeye hal mid iska ilaaliya inaad waxa weeye taariikhaha oo daarood weyn leeyahay qaarna aad mataqaanaa garab ku leexdaan qaarna aad waxa weeye karkarisaan taa iska ilaaliya taas uma taa diidanay ay ahayd waxa weeye anigu tayda waa mid iska cado xidigaha ka cado caalamka oo dhan ba hal mar ana ka wada talin jiray sida xaqiiqda afrikaan ma lagu jawaabiyo fadhi iimaan jirin afrikaan kuwa iisudee marka ilmaada reeyaan waxa idin ka rabaa nin tol waaye talada sheegay baaba idin ku filan ba hadalka oo dhan daaroodka la kala qarinayay iyo waxaan iyo wax korshe iyo wara dhaqaaba ka badan barunta marka laga hadlo marka taariikh laga hadlo baada buug iyo halkaas ay ku qoran tahay laga hadlayaa nin tol waaye talada sheegay marka ilmaada reeyaan waxaan ku gabagabeynayaa hawsheedu waxay tahay wax gacan ku rimis oo shalay maahay daraad Puntland ka hor waxaan jirin baalashan lagu wareegayaa taariikh hore oo dhacay waa la wada ogyahay waxa ka hadlayna waa wax gaal ku qoray way waa taariikh murtimaalo daabki meel ka dhamaada xadee hadii ma sadax tuuraya ana soo kufid murtimaalo waxaan ku soo kufinayaa inuu areer cafi aliyo saawaxa waxa way iska sheekaysanaa inta yani gogashan gobolka qurux badan baa idin rajaynayna kulano aan markaas aan uga digayaa waxa weeye hadii hadalka laga baadana rag waaweyn oo odayaal ah hataa siinkaas deeqa ay u sii mitala meesha
ومحسنتين قفكي waxa weeye si qalad ii fahmay waxaan la afs afeeli masaabax waa salaamaya iniga odaga qofka salaam waa salaamaya أنا السلام يا عليكم راسا ما صدق سلامي عالو جواب مركا واي بوس كان يبني درويش حسن سو قلسي واي بسم الله الرحمن الرحيم horta garaad ibraahim waxbaan ku tusayaa nimcaanow sadanadii ahayd axmed gurey ee amuur nuur dhaxlay ee 12 sano uu hayay fiiri meel mareexaanku caan ah dagaal daarood dhexdiisa wax ka dhacay oo sadanada la isku dilay ah waa miyaa horta qarsoomi kara waa maya meeshay ka dhacday aan kuu sheegayaa garaad ibraahim sadanada asagoo leh amuur nuur wuxuu meeshii garaad ibraahim meeshii la rabay inuu u dhiibo wiilkiisii uma u dhiibina wiilku adeerka uu ahaayo axmed ahaabu u dhiibo dhagayso markuu axmed u dhiibay xuseen yuusuf halkaa waa iyada ka timid waa iyada la isku diro reer garaad iyo ay isku dirireen iyo xuseen yuusuf loo diriray waa iyada halkaas dagaalku ka dhacay waa iyada gabayadu ay ka dhaceen halkaasay sadanadu annaga noogu soo wareegto horta garaadada nimanka ahaa halkaasay kaga soo wareegto garaad annaga sadanadii mareexaan horta halkaasay nooga timid waa meeshay nooga timid waa amiir nuur oo u dhiibay wiilkii axmed ahaa axmedna dee xuseen uu u dhiibay oo xuseen yuusuf ah halkaasna waa iyada lagu diro reer garaad wuxuu ahaa saldanadii ugu horeysay miya markaa miya sasa wada ma amiir nuur baa wuxuu ahaa reer garaad baa ahaa soo ina garaad ibraahim ma aha asagu soo ina garaad ibraahim ma waxaan ka hadlayana soo in adeer ma aha sadanadii xilligan ka hadlaya soo reer garaad ma aha reer ورده نيكي مكول بسو قلي عبد الناصر يا مسوق او عبد الناصر كول باي قلي عبد الناصر ما مقليس هذا عبد الناصر يو ما مقليس هذا عبد الناصر انا هذا ما مقليا ها انا هذا ما مقليا احمد غوري wiilka uu asagu adeerka uu ahaabuu saldanadii u dhiibay le reegrad buu ahaaye wuxuu u dhiibay wiilkii axmed ahaabuu u dhiibay halkaas weeye meesha aakhirka u dambeeyay lagu diriray markay ka soo tagto waxaasba oo amiir nuur laga soo tago oo halka xuseen yuusuf waa ayada timid waa anaga reegrad anagu ku dirirnay waa ayada gabayada aragtay oo dhaadheer ay ka dhaceen waa ayaga gobolka Gadaa ay aadeen oo gobolka Gadaa la furtay waa ayada ay ka dhacayso fadhi garaad meesha ahay dagaalku uu ka dhacay oo dagaalkaas uu ka sadanadaas halkaas in adeer waayada ku soo wareegtay ay maqlaysaa iska dhigo ma waxaad leedahay ده نبعانو يا هذا السؤال اللي كنت waa aan waajibin adeer anu tan dabas waata anu wax qodob ده هذيك ولا نيو inaan axmed gurey baan ka hadlayaa iyo sadanada uu hayay baan ka hadlayaa meesha anaga nooga timi soo ma aha inaan kuu sheego ilaa reegrad baa uu hayay sadanada mareexaane meesha anaga nooga timid waa halka wiilku adeerka uu ahaa buu u dhiibay hadda si fiican ma yara socotaa halkaas anaga nooga timid waxa lahaa sadanada ayman axmed gurey baa lahaa oo reer garaad ah oo garaad ibraahim baa hayay oo lahaa waa inta halkaas anaga nooga timid ay ku kala guuleysan labadeena adeer halkaas adiga gaadhay soo dalbada halkaas gaadhay ragga kala dhiibay sida وانا سلام يا مقلي aniga soo dhow axmed gurey wax badan baan waxaan maqlay reexaan sheeganaya ma in adeer axmed gurey halka inoo dhig laakiin anigu waxaan daba socday waxay ahayd saldanada ugu dheer marka la yiraahdo saldanadii ugu horeysay marka la yiraahdo daarood waxay ahayd saldanadii beesha gariir waana khilaafaadka واي نيكا عالي وانت ماشي صباح magacooda ku kala fogaadeen bay ahayd ma waa dhameeyay wuxuu kaga noqdaa hadda malaan ragga kala dooda wareeg khasay ahayd adeer واي سيدا نيكا اللي يرادو عبد الناصر بيه gariir yahay adeer cid maartay taariikhda taariikhyaanki ma joogo war boqor waa ku salaam والله سعلونا وراك سامنا الشيخ كله دمانتي هل كلمة بانتوريا أنا مركز سوق ولا نو كلمة بو نيكا سنة سوق بصدق بتقى والله هل كلمة بانتوريا كلمة سوق مركان أنا بيربان شيء الشذا أحمد قولي أي مريحان شيكتان ورحمة قولي حتى هذه إلى شيء قال يان أبندوني يجود بين إلى شيء كرينيهم حقول أبندوني مع المسلمين أبندوني كوا هايستي ما أنا كلها هايستي أبندوني كوا هايستي إنه سوى أبندوني هم هو سيماني أمير وحدها أمير نور أسرع بس طلعت لي 12 سنة هايستي محيو هوسي ما دامك أحمد قولي بنتي أمير نور بقى هايستي 12 سنة رجع بوقتنا لا هي نلاقي جاي حتى بوكاس مش لاقينا وين تحسن هذا ما ريال ما نيكا سعيد لو ان هذا كان اسكو احترامه هاي سين هذا كلمة عبد الناصر يرجع ودي من هذا اليوم ما رتي احمد قري كان انه دشي شيء سومالي محمد دنبا اوغيس لبا نداي ونيكا ما مركز وقت والرا نيكا سؤال محمود الله مقرت
نعالك كوكو دعوي نعالك على هول نعالك كوكو نعالك كوكو دعوي والله هل قرب لسه والله تلاي أنت من الجهة لو كيف يديش لما يكون يصدق دي بقى تاريخان لصوب بندقي سلوك لا طيب والله مو ضفانا وديك هسه كم هو بحنا